si saa'id ugu dhow ninkaas ma fahamtid. Mhm. Qofaa xog wareystay oo si saa'id ugu dhow ninkaas ma fahamtid. Mhm. Niyahow horta dhibaatada haysato waxa waaye wixii ninkan bareefada ma hoos ma lagu ma qaadan maaha karnaa. bareefad maaha waa wax caadiya. ninkan Mhm. markuu xabsiga imaaday Mhm. maalin markuu joogaya waxaa imaatay 5 qof oo raadinayso iyo 6 qofood oo raadinayso oo taleefano soo dirdiray ninkaas ma joogaa ninkaas ma joogaa. dadkan marka dhistay aragta buundooyinkan iyo adduunkan iskor maraayo dadka kama Mhm. caqli badna moogta. si fiican. marka waa la isweydiiyey ninkan la raadinayo maxay tahay. that's why xoogaa ninka meesha loogu haayaa. raadiskia ku batay. hebel ma jooga hebel ma imaaday taleefano waraaqado hebel ma jooga magaciisa hebel aa la dhahaa walaalow please can you check this guy is here waa la arka marka iyo dadkan dhowr meel kasoo kala wacaya. soo marka dee qofkii marka la raadinayo saas loo raadinayo importantiga why these people ay u raadinayaan. inspection waxaan bilaabanaya so marka xoogaa marka sidaasaa marka ninka xoogaa loogu dhegan yahay maahane wax kaloo hadda dhibaato oo haystana male. marka dabcan aniga waxaa isdhahay raadintaas faraha badan iyo ninkaa la raadinayo dee oo la weydiinayo hebel ma jooga hebel ma jooga hebel ma jooga 10 qofood oo kala nooca. ninka officerka meesha fadhiyo jaamacadoo kasoo baxay shahaado wataa intaasoo sano wax soo baranayo wuxuu soo bartay sida wax loo baaro iyo sida maarata wax loo fiiriyo. marka hadday adiga maanta 10 qof oo kala nooca kuu timaado ninkan ay raadinayso waa isweydiinay waxaa leedahay qofkan muxuu dadka dheer yahay. marka ninkan waxaa ku dheereeyey waxaa waaye abtiyaashiis iyo dadka meesha jooga iyo dadka qaraabadiisa ahaa iyo dadkii saaxiibadiisa iyo familigiisa ku fogeeyey ma fahamti. si fiican. so marka waxay u direen more background check loo diray. ma inuu ilaahay ha u fududeeyo walaalkeeyo. walaa aniga waa isweydiiyo dhowr habeen waxyaalo kala biis iskaga ahaa koleyto yar kalena wuu joogaa. ma dhamaysata walaalkee? marka waxaa dhihi lahaa ninkaas ilaahay ha usoo fududeeyo. amiin wax cabsiyan horta hadda ma qabo oo meeshuu ka yimid waa austrina maraykan waxay ka aaminsan tahay inuu yahay wadanka ugu horeeya ugu cunsurisan yurub. oo taas asaga wax dhib oogama imaanaan laakiin waxaa aaminsanahay waa nin dhalinyaro waa nin maarata maskiina waa nin maaragtay oo dadka bulshada wallahi dadka oo dhan iskaga mashquulsan. aniga waxaan ku dhacay Soomaali maaragtay ummadda dadkooda lugeeyay waa ninkaas wax allaala wax maanta lagu haysta ma jirto. qof kasta oo nolosha ka dhacay ama qof kasta wax yarto adduunyo wax yarto helay ku dhagan maana wax kale ma arkin. qofaa xog wareystay